waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka xidig tv barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa caabuqa covid-19 waxaana marti iigu ah Khadar Cumar Maxamed oo ah shakhsi kasoo kabsaday cudurkan uu ku dhacay balse hadda ka bogsaday waxaana soo jeedin doona anigoo ah Cabdi Ibrahim barnaamijkan waxaan rabnaa inaan uga hadalno covid-19 arintan oo ah arin maalmahan kacsan oo loo baahan in laga hadlo sida ay dadyo badan ay ka wada hadleen marka Khadar barnaamijka ku soo dhawaaw waxaad haddii aad ku bilowdo magacaaga iyo khibradaada ku saabsan covid-19 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحبك عبد إبراهيم والسلام يا عنك لو عاد السلام يا تي في حدك وفرصة دان إيسي إن إذن لو ذاكو قونتي إذا أما experience كوسابسن COVID-19 عاد بعد ما سنتاي عندوه خضر waxaad degan tahay magaalada St Cloud waxaad tahay qof abaar degana aadna looga yaqaano haddii aad marka nooga waranto caabuqa covid-19 marka aad ogaatay inuu kugu dhacay iyo waxyaabaha aad darantay عبد إبراهيم واسلا وشكتي waxaan magacayga waa Khadar Cumar Maxamed waxaan ahay qof ku nool magaalada Minnesota qaas ahaan St Cloud Minnesota shantii sano u dambeysay waxaan ahay qof ganacsada ah haddii aan u soo gudbo su'aashaada oo ahayd inaan kula wadaago caabuqa 19 waxaan ahaa dadkii nasiibku u yeeshay inuu ku dhaco caabuqa 19 alxamdulillah kana soo kabsaday ama ka bogsooday si loo yaqaano waxyaabo badan ayaan intaan cudurkaas uusan igu dhicin sidaan ka aaminsanaa iyo siduu markii uu dhacay uu noqday laba ay kala ahaayeen alxamdulillah maalintii u horeeyay cudurkan aan dareemay aad baan u qandaday jirkoo jajabay qandooyinka ihayay waxay u ekayd wax hergab igu dhacay oo kale sidaa daraaddeeda qandadii ugu badatay 2 maalin 3 maalin aad bay u qandaday dad yaa oo cudurkaas la noolaa ayaa isoo waceen ugu yireen waxa ku hay laga yaabo in cudurku yahay waa inaad aadaa baaritaan sidaa daraaddeeda markaa wixii ka dambeeyay waxaan ku tawaabashaystay inaan isoo baaro haddii aad sii socotid Khadar baaritaanka nooga waran sida lagu baaray iyo waqtiga aad jawaabta heshay arinta bal nooga dhacyadana sida sharciga uu yahay gobolka Minnesota waxay leeyihiin number u qaas ah oo aad wacaysi marka cudurkaada ama calaamadihiisa aad dareentid calaamadaha ugu badan cudurka waxa waaye qandho neefta oo kugu dhagto jirka oo ku jijabo dhadhanka oo ka tago calaamadaha qaar dadkan way wada arkaan dadka qaarna ma wada arkaan qadbo si uu calaamadu u dareemaa sidaa daraaddeed numberka aad wacaysaa shaqaalaha ka qabanayo shaqaalaha wuxuu ku weydiinayaa xanuunkaaga iyo waxa aad dareemaysid markaad la wadaagtid xanuunkaaga iyo waxa aad dareemaysid iyo qandhadaada kadib wuxuu ku gudbinayaa number kale qof kale uu ku gudbinayaa qofkii kale haddana daqiiqado kadib numberka ka qabanayo isla markaa haddana su'aalihii qofkii hore ku weydiiyay su'aalo lamid ah ku weydiinaya si lamid ah uga jawaabaysa su'aalihii kadib wuxuu ku ballan buu ku qabanayaa dadka qaar haddii markaasi ay ballantu dheer tahay waa maalin marka ugu dheer tahay maalin ay noqotaa marka qaarna isla maalintaas haddii firaaqo la hayo isla maalintaas la iska qaadaa kadib ballanta kadib waqtigii lagu qabtaad ku tagaysaa adigoo gaarigaaga ku jiro ayaad meesha tagaysaa waad wacaysaa bakinkaad meesha gabaariyaha la dhigto bakinkaad istaagaysaa numberkii aad wacaysaa numberka markaa wacdi kadib qof waa kaa qabanaya wuxuu ku leeyahay ballan miyaad leedahay ballan inaad leedahay sheegaysaa xilligaad lahayd magacaaga first name-kaaga iyo last name-kaaga magacaaga awowgaaga iyo magaca aabahaaga magaca adiga aad leedahay sheegaysaa markaas kadib qofkii wuxuu ku leeyahay adigoo gaari kasoo degan meel yaroo la maraajito markaasaad maraysaa xaal baaritaankii aad guda galaysaa
baaritaanka marka laba qayb waayo dadna gudahay galaan dadna ayagoo gaarigooda ku jiro ayaa laga qaadaa aniga dadka waxaa nasiib ku yeeshay anigoo gaarigayga ku jira laga qaaday carabkan dhexdiisa hooso ayaa suuf yar laga marinaya candhuuftaada ah ilaa dalqada hoosteeda kadib sambolkaasaa la qaadaya la dirayaa maalin ama 2 maalin ama 3 maalin hadba siday noqoto ayaa jawaabta kusoo dhacaysaa khadar waad mahadsan tahay sidaan wada ognahay magaalada St Cloud oo ku taala Central Minnesota saddexda county ee Stans Benton iyo Sherburne waxaa tirada dadka uu ku dhacay COVID-19 aad iyo aad ay u badnayd waxaana lagu tilmaamayaa inay dadka aad iyo aad isku gudbiyeen marka adiga markaad ogaatay baaritaankii jawaabtan lagu siiyay oo aad ogaatay in COVID-19 aad qabtid maxaa talaabo oo aad samaysay si aadan isla caabuqan COVID-19 ugu gudbin eheladaada iyo asxaabtaada kale oo caafimaadka qabay markaa cabdi ibraahim waa baxsan tahay markii ugu horeysay cudurka aan qandhada aan dareemay shaki waxa iga galay inaan cudurkan uu yahayo sidaa daraadeeda intaanan isbitaalka aadin ka horaba waxaan bilaabay inaan dadka iska ilaaliyo waayo ma garanaynin waxa xaaladayda noqon doonto mar waliba waxaan isticmaali jiray oo hadda iga muuqato aad arkaysid ilaa hadda aan isticmaalayo aan wato bahalka sanka lagu xiranayo loo yaqaan maskiga waxaa kaloo isticmaali jiray hand sanitizerka oo mar waliba jeebkayga ama gaarigayga ay ku jirto waxaan iska ilaaliyay dadka inaan salaamo ama aan u dhawaado ilaa 6 feet aan ka fogaado waxaa kaloo aad u ilaaliyay maadaama aniga cudurkan iskaga shakiyay qoyskayga ka ilaaliyay inay isla isticmaalaan hal musqul ama hal suuli inaan qolkayga geli aan isticmaalo keligayga aan joogo kadib markii aan ogaaday in cudurkii la iga helay oo korkayga uu ku jiray dadaalkayga dadaal baan ku sii daray waxaan gooyay inaan magaalada soo aado inayba duruuf ama dan weyn igaga xiranta maahane haddii aan dhacdo magaalada inaan soo aado marba kama soo tagin jirin gloveska aan gashanayo maskiga wajiga aan ku xiranayo sanka aan ku xiranayo iyo hand sanitizerkayga qofkii iga hor imaado waxaan u sheegi jiray in cudurka aan la lahay uu iska ka ilaaliyo ama iga fogaado sababta aan dhihi kara marka magaalada aan ku noolahay sababta ugu bato waxa waaye cudurka marka hore uu kugu dhacayo ma malaynaysid in cudurku ku hayo waxaa dhacda qandho yar yar dadka qaar dadka jilbaha burburaya ama korka xanuunaya soo hergab ahaan baad loo malaynaya inta badan marka qofka asoo hergab ay hayo ku dhahayo ku imaanaya ku soo galaya wixina sidii uu ku gudbinaya marka waxyaabaha ugu badan dadkeena ama states county-ga ugu badan oo cudurka uu ku faafay aan dhihi kara waxa waaye aqoon la'aanta khadaro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aad noogu sharaxday waxyaabaha aad dareentay iyo sida aad bulshada kale uga badbaadisay in isla cudurkan COVID-19 uu ku dhaco waan arrin loo baahan yahay cid walba oo ilaahay hadda cudurka ama caabuqa uu ku dhaco inay iyaga keli uu ku ekaado oo ay sameeyaan dadaal dheeri ah si cudurka dadka kale aysan ugu gudbinin waxaa muhiim ah in dadka Soomaalida cudurka sidii meelaha kale uu saameynta ugu yeeshay uusan ugu yeelanin marka khadar maxaa daawo dhireed ah ama daawo dhaqameed oo aad isticmaashay oo kuu sahlay in cudurkan uu ka yaraado aad baad u mahadsantahay cabdi ibraahim marka horta isbitaalka aad edid ama dhakhtarka la kulantid dhakhtarka waxyaabaha uu asaga uu ku siinayo ama uu ku sheegayo waxay tahay inaad isticmaashid xanuun baabiye oo kaliya loo yaqaan Tylenol xanuun baabiyahaas kaliya wuxuu daawo u yahay waa intuu jirkaaga ku jiro oo kaliya marka maadaama aan Soomaali nahay waxyaabo oo soo jireen jiray oo la isticmaalo xagga qanjabinta ama waxyaabo qaar oo waalidiinta ku sheegayana jiro waxaa ka mid ah aan isticmaalay xabad sawdada oo aad aan u marsan jiray habeenkii markaan seexanayo ama qandhada markaan dareemo liinta oo aan biyo kulul intaan saaro liin aan ku daro xabad sawda aan ku daro waxaa kaloo isticmaali jiray toonta oo loo yaqaan garlic
waxaa kaloo isticmaali jiray dhagayaraha intaasaan isku tumayaa biyihii kulula ayaan ku darayaa dan 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo intaa u dulqaadan kartid biyihii kulula ayaa busto kor iska saaraysaa waad isku huurinaysaa soo jirkaaga aad buu u dhididayaa dan hadduu naqaska xitaa markaas kugu dhagnaa naqaska wuu kaa soo fuqayaa soo waxyaabaha aan isticmaalay oo soomaalida inta badan ay isticmaashay waxyaabahaasaa ka mid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Khadar Cumar oo ah nin dhalinyaro ah oo ka soo kabsaday caabuqa COVID-19 daawadayaashana daawanaya waxaan xusuusinaynaa in ilaa hadda la khafiifiyay xanibaadyadii markii hore la saaray dadweynaha ku nool gobolka Minnesota oo haatan la furay in ciyaaraha qaar dadka aadi karaan hoteelada aadi karaan inkastoo full capacity aan la ogolayn marka waxyaabaha la khafiifiyay iyo dhimashadii George Floyd waxay keentay in dadweyne fara badan ay aadaan mudaharaadyada waxaa lagula talinayaa marka dadkii haddii aad aaday mudaharaadka waxaa suurtagal ah in aad soo qaaday COVID-19 marka waxaan dadka kula talinaynaa cid walba oo ka qayb gashay mudaharaadyadaas inay isbitaalka aadaan oo ay iska soo baaraan inay qabaan COVID-19 haddii jawaabtaadu ay negative noqoto oo balse aad dareemaysid in xanuun iyo wax aad dareemaysid waxaad samayn kartaa inaad haddana baaritaan labaad aad samaysid waa talada uu jeediyey governorka gobolka Minnesota waxaa muhiim ah oo aan doonaynaa dadweynaha inaan u sheegno in talooyinkii ay bixiyeen wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota mar walba la raaco tusaale ahaan hadda waxaa la furayaa masaajidada marka masaajidada la furay ma aha in la wada furay oo qof walba uu masaajidka aadi karo xilliguu doono sidoo rabana uu tukanayo ama dadka ay isku wada imaan karaan waxaa lagu furay oo xanibaada lagu qaaday masaajidka iyo kaniisadahaba in dadka ay raacaan weli talooyinka la bixinayo oo ah in 6 feet la isku jirsado qofka inuu maskiiska xirto inuu hand sanitizer maartay uu mar walba wato iyo inuu saligiisa soo qaato masaajidka si uu madaxiisa u dhigto haddii aan marka aan sii wadno waraysigeeni aan la yeelanayay Khadar Cumar Maxamed Khadar waxaad maadaama aad cudurka uu kugu dhacay oo aad ka soo fayoobatay wax tala hadday jiraan oo aad siinaysid dadka Soomaalida si cudurkan faafitaankiisa uu yaraado Cabdullaahi aad baad u mahadsantahay Cabdi Ibrahim aad baad u mahadsantahay waxyaabaha aan dadka aan la wadaagayo waxay tahay oo tala ah in mar waliba horta la dhageysto dadka u leh takhasuska cudurkan COVID-19 sida takhaatiirta oo wacyigelinaya mar waliba dadka talooyinka dadka ay siinayaan in mar walba loo hoggaansamo mar haddii uu cudurka kugu dhacay micnaheeda ma aha inaad cudurkii ugu dambeeyay noloshaada ay tahay fursado fara badan oo looga soo kabanaya jiro waa mar haddii aad adiga nafsadaada ilaalisid walaalkaagana aad ilaalisid haddii aad gurigaaga 14 bari la yiri ama 15 bari inaad gurigaaga joogtid inaadan banaanka aadin haddii ay dhacdo inaadan iloowin waxyaabihii isticmaal lagu yiri sida maskiga hand sanitizerka gacmaha lagu dhaqdo in markaad magaalada ka soo laabatid gacmahaaga dhaqdid ku dhawaad 20 ilbiriqsi ilaa 30 ilbiriqsi gacanta aad dhaqdatid oo aad ku dhaqatid saabuun inaad ilaalisid guriga markaad joogtid dadka aad la nooshahay inaad ka ilaalisid cudurka intaad guriga dhex joogtid uu ku xirnaado maskigaaga inaad ilaalisid musqusha ama sooliga aad isticmaalaysid keligaaga haddii ay suuragal noqoto inaad isku koobtid waxyaabaha talooyinka la siiyo ugu muhiimsan waa midaas midda labaad oo kale jirto midda kale saddexaad oo jirto waxay tahay xagga caafimaadka waxaa jiro markuu cudurka kugu dhaco way ku soo wacayaan waxay ku wareysanayaan xaaladaada iyo sidaad ku sugan tahay waxaa jirtay 2 isbuuc ka horey mar la isoo wacay oo la igu yiri maadaama cudurka hore waqtigii uu ku dhamaaday 14 bari karantiinka ku dhamaaday waxaa loo baahan yahay inaan ka baaran dhiigaaga COVID-19 inuu weli ku jiro in kale waa si voluntary ah oo iskaaga ah qof ku qasbaya ma jirto laakiin waxaa muhiim ah inaad yeeshid talooyinka ka imaanaya meesha sidaa daraaddeed waan aqbalay waan aaday dhiigga la iga soo qaaday laba qayb waaye si guud
cudurka waa liga waayay oo iguma jiro jirkeyga laakiin dhiigayga weli wuu la nool yahay wuu ku jiraa positive aan ahay dhiigayga positive kaas micnaheeda ma aha inaan gudbin karo cudurka oo aniga cudurka ma gudbin kari laakiin waxa suuragal ah caabuq inuu igu soo laaban karo marka mar haddii uu kugu dhaco micnaheeda ma aha inuusan kugu soo laaban karin waa inaad ilaalisaa meesha aad tegaysid isticmaalka weli aad isticmaashaa maaskigaaga sidii dadka iskaga ilaalin jirtay in la mid marka hore waxaad iskaga ilaalin jirtay inaad dadka u gudbisid haddana waxaad iska ilaalinaysaa inuu adiga kugu dhaco mar labaad marka mar walba waa inaad is ilaalisaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar Cumar Maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka soo kabsaday cudurka caabuqa COVID-19 daawadayaal waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta ku saabsanaa halka waxa tala naga ah haddii aad warbixin ku saabsan COVID-19 aad doonaysid inaad mar walba booqan kartid website-ka wasaaradda caafimaadka ee Minnesota ama aad kala socon kartid Facebook iyo Twitter website-yadooda waxa kaloo idin sheegaynaa in barnaamijkan ay noo sahashay oo ay nagu saaciday inaan idin soo jeedino isla wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah